قسيقة هالقمية كنت ذي دالكيسة أبقى قد كسارة كيقى دفعايو قسيقة هالقمية كنت ذي دالكيسة أبقى قد كسارة كيقى دفعايو شاولاو عدوغا اسكرب سدي كرا شاولاو إلا سقربان تنتي قريقي هيدا إلا سقربان تنتي قريقي هيدا عدوغا اسكرب سدي كرا شاولاو عدوغا اسكرب سدي كرا شاولاو شاولاو كردو حقوق تهي كرا شاولاو إلا ودقلايو ملقا لقطويا هاي كردو حقوق تهي كرا شاولاو كردو حقوق تهي كرا شاولاو شهيكم معوان سدينا انت قبار لو شهيكم معوان سدينا حد سلقوا قرانا دو كيفني وحاد كهردا حد سلقوا قرانا دو كيفني وحاد كهردا انت قبار لو شهيكم معوان سدينا على أشرف المرسلين marka ugu horeyso macallimiinta iyo tababarka iyo ardayda duruufaha ay soo mareen 5 bilood ka hor ayuu ahaa tababarkaani markuu bilowday wuxuu soo maray marxalado kala duwan oo ah mataqaanaa bilow iyo dhexdhexaad iyo dhammaystir maanta waxaan joognaa meesha ugu dambeysay oo dhammaystirka ahaa sida la ajligeeda waxaan aad iyo aad ugu faraxsanahay duruufihii la soo maray iyo dhibaatooyinkii iyo wax walbeeto waan u soo gegsanay waxaana rajaynaynaa ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed sida aad ugu diyaar garoobeen iyo waqtiga ay munaasabaddan ay qabsanto oo ay ku soo aaday iyadoo duruuf adag ay ka jirto dalka waxaan rajaynaa saaxiibada EUTM-ka nimankii ahaa oo naga maqan ayagana duruuf ayaa meesha ku xirtay waxaan diyaar u nahay inaan waxbarashadii macallimiintii intaas ay soo wadeen aan ugu abaalgudno sharaftii iyo wanaagii ay ku qabteen ardaydana sida ay duruusta u qaateen bariita waxaan rajaynaa inay anfici doonto ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed oo ay noqon doonto niman ciidan loo aayo oo mustaqbalkooda wanaagsanaado xagga dishibiliinka xagga maxaan ku yiraahdaa howlgelinta xagga dardaaranka xagga tababarka wax walbeeto kulli waxaana aad ugu mahadcelinaa macallimiinta iyo horjoogahii oo ka soo shaqeeyay iyo ardayda inta fiicneed oo waajibka sidoo ahay qaadatay dhammaan waa u mahadcelinaa waxaa waaye waxaan rajaynaa in ay noqoto wixii aad barateen mataqaanaa inaad dalka wax ugu tartiin iyo dadka iyo deegaanka iyo diinta intaba waxaana rajaynaa in aad duruusti aad qaadateen baraatikadeedii inaad mataqaanaa aad ku dhammaystirtiin insha allahu tacaala idinkoo gudanayo waajibaadkiina iyo wax walbeeto waxaan aad iyo aad ugu faraxsanahay ama aan uga mahadcelinaa saaxiibadayna EUTM-ka oo dadaal badan muujiyeen oo intaas waxbarashada iyo mataqaanaa soo wadeen kabacdina hadda duruufta timid jiradana ilaahay ha naga saara dhamaanteena
waxaan rajaynaynaa inaan maxaan ku idhahdaa isu soo noqon doono tababarkiina halka uu ka sii socon doono macallimiintana waxaan u mahadcelinaa dadaalka ay sameeyeen dheeriga ah iyo ayagoo shaqadii gunaanaday ee dhammaystiray waana ku mahadsan yihiin dhammaan Soomaaliya ha noolaato Soomaaliya ha noolaato ku mahadsan yihiin insha Allah waxaan soo dhaweeyay الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على من لا نبي بعده محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أبندولها قسمها أبندولها أهلا مدحها وقالك هالبريت عيدا كحوة درك الصوماليات سريين قلتو محمد شيخ مدوري تليها كوكسيقا سريين قلتو محمد محمد سني سراكيشة كلاها وضعين مدكا dugsiga tababarka saaxiibadiina tababarka naga caawinayay maxaa midowga Yurub iyo dhammaan macallimiinta iyo ardayda maanta qalfiyinaysada aad bay u salaamantihiin mar labaad waxaan ku salaamayaa salaanta islaamka assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh xafladdu waxay ku soo hagaagtay waqti adag tabcaysay iyo howlwadeennada ku soo tabcayay inay ciidankaasi soo saaraan dhammaantood howlwadeennada iyo saraakiisha iyo macallimiinta ugu horeeya taliyaha dugsigu iyo kuwa kale saaxiibadan nahay ee naga caawinayay midowga Yurubba way mahadsan yihiin iyaga intaasaan ku dhaafayaa hawsha ciidanku waa hawl adag in la qabtana waxa aas-aasi u ah ama gundhigu ah dhowr waxyaabood hawl kastoo la qabanayo sida qaalibka waxaa muhiim ah qofku inuu garanayo aqoontii iyo xirfadii leeyahayna kartidii lagu qabanayay hawsha horinta maanta halkan ka qalin jabinaysa waxaan filayaa in la idin siiyay tababarka idinka caawin lahaa xirfadii iyo aqoontii aad ku qaban lahaydeen hawsha laba qodob oo laakiin idinka si gaar ah idinku xidhan baa jira kartideedii inaad la timaadaan iyo in wadaniyad iyo daacadnimo ay aas-aas u noqoto hawl kasta oo qabanaysaan maxaa yeelay qofku hadduu aqoontii leeyahay wax garanayo hawshuu taagan yahay laakiin se aanu daacad ka ahayn ama se aanu fahamsanaynba qiimaha wadaniyadda iyo shaqadan uu hayaa waxay ku tacalluqdo waxay noqonaysaa nin quraanka yaqaana laakiin aan ku camal falin ayuunbay noqonaysaa sidaa daraaddeed waxaan aanu idinku dardaarayaa idinku dhiirigelinayaa aqoontii waxaan hubaa in laydin siiyey muddadaa laydinku soo tabcayay laakiin inaad ku ladhaan ood idinku la timaadaan waa mid idinka idinku xidhane kartidii aqoonta aad uga faa'iidaysan lahaydeen iyo wadaniyadii iyo daacadnimadii waayo hawshan aad qabanaysaan waa hawl nafhurida weeyaan ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed markaad soo gasheen nin walba wuxuu ku talagalay oo uu go'aansaday inuu naftiisa u huro difaaca dalkiisa wixii hawsha xumeynaya intaa ka hooseeya wax la sacrifice gareeyo ama la huro ama la bixiyo naf baa ugu qaalisan naftiina inaad u digno hurtaan baad maxay go'aansadeen maalinta diriiska xidhateen laakiin waxyaabaha ka yaryar ee ka hooseeya waxyaabahaas ee shaqadiina xumeyn kara waxaan ku dardaarayaa inaad maxay aad meel iska dhigtaan ka waantowdaan ka fuujignaataan waqtigu aad inoogu ciriiriya daraaddeed aqoontu meel laga bilaabay leedahay meel ay ku dhammaato male askari kastoo maanta halkan ka qalin jabiyey waxaan ku dardaarayaa in uu gacanta ku hayo siduu maalin walba u kororsan lahaa aqoontiisa oo uga kororsan lahaa sarkaalka xukumaya sarkaal xigeenka xukumaya ka ay saaxiibadii yihiin wax ku dhaama waxa laga yaabaa intiina halka fadhida inay qaar saddex luqadood ku hadlaan qaar inay af Soomaaliga qori yaqaanaan qaar inay qori aqoon inuu xisaabta ku wanaagsan yahay inuu tabta dagaal ku wanaagsan yahay inuu sahanka ku wanaagsan yahay inuu wax ku wanaagsan yahay baa dhici karta inay dhexdiinana kala faa'iideysataan kuna dadaashaan tababarada kale ee kuwan ka sii sareeya si aad uga qayb gali lahaydeen maanta waxaad tihiin askar inaad ku dadaashaan inaad u noqotaan saraakiil xigeeno inaad noqotaan saraakiil inaad higsataan inaad noqotaan dhammaantiin janan waxaa la yidhaha askariga aan ku fikirin inuu janan noqdaa askari maaha saa daraaddeed inaad hankiinana weynaysaan oo aad maxay dadaalkiina laba laabtaan oo saad aqoontiina maanta laydin siiyey faraa uga hayn lahaydeen una sii kordhin lahaydeen ku dadaashaan taana waan isku dardaarayaa
xaaladda waddanku ku sugan yahayna waad ogtihiin inaad idinkuna ka qayb qaadataan bulshada caawinteeda hadday tahay qaadashada awaamiirta hadday tahay maxay talooyinka leenisiinayo qaadashadooda iyo ku dadaalidda sidii dadka loogala shaqayn lahaa inagna hawshaasi maxay ay sideeda u fuliyaan intaasina waxa weeyaan waajibaad gaar ah oo ina saaran oo ciidanimo naga saaran bulshadeena iyo dalkeena naga saaran weeyii tilmaamihii tusaalihii taliyaha xoogga dalka Soomaaliyeed iyo tan madaxda qaranka sharaf waxa ay maanta inaan ka soo qayb galo shirkan loo xiray tababarka ciidamada. Today I'm here on behalf of the CDF and I'm very pleased to be joining you in this closing ceremony, and I want to thank UTM and SMA trainees for their commitment they have shown the last 5 months. Thank you. idinku nasiib baad leedihiin aniga maalintii aan tababarka la ii soo xiray 50 sano ka hor meel baraf dhaxdiisa oo gacmaha iyo dhagaha ay kagay ayaan leegu soo xiray idinkana maanta alxamdulillah wadankiina adoo joogay kuleelba tababarka idinku soo xiray taamicneeda maxay tahay 50 sano ka hor waxaan u maleynayaa nimankeena badi meesha ay joogaan macallimiinta mooyaan bunay iyo haddii ii soo dhawaadaan mooyaan inta kale wax dhashay ma lahan laakiin erey maalintaas macallinkayga yireen xasuusanahay muxuu ahaa dhiigga ka baxa waqtiga tababarka wuxuu badbaadiyaa dhiigaaga dagaalka goobta dagaalka markaan hal heeskaas ku dhaganaada waa muhiim hadda isla maxaa lagu dhibayaa maxaa lagu kareedinayaa tababarkan inka badanna muxuu ahaa waa badbaadadaadi waayo hadda si fiican u tababarata meeshan oo aad si guul ah uga soo baxdo barito goobta dagaalka kuma fashilmaysid askarigu waa badbaadiyaha ummadda waa badbaadiyaha qaranka waa badbaadiyaha sharafta ummadda Soomaaliyeed markan maalintii aad soo gashay askariga ayaa waxaad ku dhaaratay inaad dalka iyo dadka iyo diintaba difaaca u haato waa mid laga rabo inaad fuliso saadaradeed kulay wixii hadal ahaa saraakiisha iga horeysay ayaa soo jeedisay anoo u mahad celinayo saaxiibkay jananka UTM kaasna ereyada qaaliga ahaa oo meeshan ii soo marsiiyay internetka waxa uu leeyahay guuleyso diyaar waxaan u nahay inaan si wada jira aan kula shaqeyno idinku noola shaqeyseen anagana inaan idin la shaqeyno aan diyaar u nahay dalabaadkii oo u soo gudbiyay taliyaha xoogga dalka Soomaaliyeed oo codsigiisa ah in la abaalmariyo inta ugu fiican runtii jananka waa ka qaadanay waana ka ogolaanay waana fulinaynaa hadda horta inta gabar loo shahay gumcawaan sidayna kala jihadka gala guba cadaawaha guba kala jihadka gala guba cadaawaha guba kala jihadka gala guba cadaawaha guba kala jihadka gala guba cadaawaha guba